sida ay sheegayaan wararka aan helayno taliyihii hore ee ciidanka asluubta Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa la geliyay xabsi guri kadib markii ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ay la wareegeen gurigiisa taliye shub ayaa la ogeysiyay inaysan cid soo booqan karin sidoo kalena uusan banaanka u bixi karin iyadoo booliiska Soomaaliya ay sidoo kale la wareegeen raashinkiisa iyo wax kasta oo uu u baahan yahay kaliya waxa loo ogolaaday isticmaalka telefonkiisa sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ciidamadii ilaalada u ahaa taliye shub ay la wareegtay dawladda isla markaana ka tirsanaa asluubta Soomaaliya amarka xabsi guriga looga dhigay taliyihii hore ee ciidanka asluubta Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayay wararku sheegayaan inuu bixiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo hadda lala socdo dhaqdhaqaaqiisa sida xogaa ay sheegayaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hortagaysa laba arin oo uu sameyn karo taliye shub waxayna kala yihiin inuu si dhuumaalaysi ah ku aado magaalada Baydhabo ee gobolka Baay maadaama ay isku fiican yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen sidoo kalena uu sodog u yahay sidoo kale dawladda ayaa ka ilaalinaysa taliye shub inuu warbaahinta la hadlo markaan taas ka soo tagno ilo xog ogaala ayaa inoo xaqiijiyay in taliyihii hore ee ciidanka asluubta Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan loo haysto 3 kiis oo culus kuwaas oo kala ah taliye shub ayaa loo haystaa in ciidamo ka tirsan asluubta Soomaaliya oo uu tababar ugu soo furay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay uu ku wareejiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ciidamadaas ayaa ahaa kuwii maalmo ka hor uu tababarka magaalada Baydhabo ugu soo xiray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ciidamadaas oo lagu sheegay inay yihiin daraawiishta maamulkaasi hase ahaatee sida ilaa xog ogaalka ay noo sheegeen ciidankaasi ayaa ahaa ciidamo federaal ah oo ka tirsan asluubta Soomaaliya waxa kale oo xoga ay tilmaamayaan in taliye shub loo haysto in maalmo ka hor magaalada Muqdisho uu ka dirayay diyaarad hub u siday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen diyaaradaas oo ay gacanta ku dhigtay dawladda federaalka waxaana dawladda baaritaan ay samaysay ku ogaatay in hubkaasi uu daabulayay taliyihii hore ee ciidanka asluubta Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo maanta dawladda ay xilka ka qaaday arinta saddexaadna waxaa lagu sheegayaa in taliye shub maalmihii la soo dhaafay uu xiriiro toos ah la sameynayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo uu sidoo kale sodog u yahay isla markaana qaraabo ay yihiin saddexdan qodob ayaa soo dedejisay in xilka laga qaado taliye shub isla markaana dawladda federaalka ay geliso xabsi guri